gudub iyo saxan saxo u gaara ayaa yimid idin dhulkeenna waleeg dhalinta iyo barbaarta naadiga akhriska iyo qoraalka ibaha furtay ee ilhaaman aabbihii suugaanta iyo afkeenna abwaan cali lagu asteeyey abwaan cali lagu asteeyey aqoontuna ay hagayso ayaamuhu kala il dheere alla ilahe waa ayaandhe allana mahadid ha gaadho ogow alifbeetadeenna iskuul iyo idil malcaamad intaad jaamacad aslaysay ogow alifbeetadeenna iskuul iyo idil malcaamad intaad jaamacad aslaysay adigu idilkeed aqoonta waxaad imtixaan ku baastay intaad akhridu ahaayee abbowe abbaayo heedhe ma haysa aayihiisa ma xoortay jahligiiyo ushiisa hortaadu ma kuu iftiintay indhaha ma furtoo ma eegtay aqoontiiyo midhaha guusha mid kale aragoo baldheeho udgoonow rasuulkii eebbe sala allahu calayhi wasalam markuu aayadaha qur-aanka ilaahay ku soo aroorshay malagiina amray ee ku qowlay iqriyo eraygii bilowga ujeedka waxyigaa ku duugan akhris iyo cilmi bay ahaydee ogaada qiimaha aqoonta haddaan in yartaa iftiinsho islaamnimaduun ka eego bal fiirso qur-aanka eebbe aayaadka qalinka sheegay qoraalkana lagu asteeyey sidoo kale dheeho aadme wuxuu rabbigeen abuuray adduunyada idil ahaanba inuu qalin ugu horreeyey maxaa hadda kuu iftiimay ma kuu dhacay ibafurkiisu madaah baa kaaga awdan inuu akhriskiyo qoraalka ilaahay kuu bayaanshay aaraar iyo faallo gaaban intaasi haddaan ku dhaafo aan ibafuro aragtidayda abbaaro ujeeddo miigan idinna marxabee guddoonsha adduunyadu waa ildoogsi dharaaro la ooli doono si aad kumanaan ayaamo quruumihii hore u aaddo kuwaagana aad u eegto akhris baad ku heshaa adeege awoowe ka yeelo maanta si aad idilkii adduunka ayaama ku soo wareegto adigu akhri oo qor maanta adigu noqo uurku buugle taariikhda islaamka qayba adigu noqo mala awaale afkaar iyo sheeko curiya adigu noqo kii afkiisa abqaale awoodda saara adigu noqo ababsho fiican abwaan suugaantiiyo afkeenna dhallaanka iyo ubadka maanta dhigaal iyo eray ku soora gabagabadii waa beejka ugu dambeeyey adigu noqo faylasuufi buugaagta adduunka taalla oo daraso ururinaya aqoon-yahan xeelad dheer leh afkaaga u hiili maanta indhaha furo oo baraarug adduunka la baratan maanta adoo rabbi sharaf ku siiyey islaam kaa dhigay awood leh filkaagana ugu horreeya addoon ha u noqon ibleyse mid aan ashahaad qiraynin aqoonta agtaada taalla adigu ha u daba fadhiisan haddaan kuu soo afmeero intaasi ku soo ekeeyo adaan ku su-aalayaaye ma yahay akhriskiiyo qoraalku il iyo maax aan gudhaynin ma yahay akhriskiiyo qoraalku aqoon aan kaa hadhaynin ma yahay akhriskiiyo qoraalku ilayskii nolosha maanta aada baa mahadsantahay